doorashada guud ee dalka Mareykanka waxaa ka hartay 9 maalmood kaliya iyadoo dagaalo culus ay ka socdaan bariga dhexe oo ay Mareykanku ku leeyihiin. waxaa doorashada dalkaasi fara kulul isku hayo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo dhowr jeer ka badbaaday isku day dil toogasho intii lagu gudu jiray ololaha doorashada, iyo Kamala Harris oo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo hadda xilka hayo. Kamala Harris waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay oo Afrikaan ah oo madaxweyne ka noqota dalka Mareykanka haddii ay ku guuleysato doorashadaasi. haddaba shakhsi walbo wuxuu ordayaa in uu helo kursiga madaxtinimada ee aqalka cad. dhanka kale Donald Trump iyo Kamala Harris maxay ka yiraahdeen dagaalka Israa'iil iyo Hamas. I was saddened by the fate of the Palestinian people. They deserve a far better life. They deserve the chance to achieve their extraordinary potential. Palestinians have been trapped in a cycle of terrorism, poverty, and violence. Let's understand how we got here. On October 7, Hamas, a terrorist organization, slaughtered 1,200 Israelis, many of them young people who were simply attending a concert. Women were horribly raped. And so absolutely, I said then, I say now, Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. hase yeeshee xafladda ololihiisa doorashada ee ka dhacday magaalada Novi ee gobolka Michigan, madaxweyne hore ee Trump waxa uu taageero ka helay madax badan oo muslimiin ah iyo Carab Mareykan ah. Good afternoon, Michiganders. As the president said, we just had a positive meeting with President Trump. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. 4 askari oo Israa'iil ah ayaa lagu dilay, 14 kalena waa lagu dhaawacay dagaal ay la galeen ciidamada Xisbullah oo ka dhacay tuulo ku taalo koonfurta Lubnaan xalfiidkii, sida ay sheegtay militariga Israa'iil. ciidamada la dilay ayaa lagu kala magacaabaa Captain Rabbi Avraham, 43 sano jir ah oo ka soo jeedo Jerusalem; Gilad Elmaliach, 30 sano jir ah oo reer Jerusalem ah; Captain Amit Chayud, 29 jir ah oo reer Haifa ah. ciidamada ayaa dhammaantood la shaqeynayay guutada 8207 ee Allon Brigade. Golbert wuxuu ahaa rabbaaniga guutada, Chayud wuxuu ahaa taliye kooxeed, iyo Abitbol wuxuu ahaa taliye ku-xigeenka shirkadda. 14 askari ee dhaawac ah ayaa 5 ka mid ah ay xaaladooda halis tahay.